xasanow halka qoraxda ku taagan tahay maahi baxdo dad badan ay leedahay qaasan dadka culimada markii la yiraahdo kaligay maahan ragga igudada iyo ragga weyn dadka fircoon way leeyihiin aniga waliba reer baxda marka culimadu nahay dad tawfiiq lahaan nahay nidaam leh shaqooyin anigu aan qabanaya hadii markaad aragto waa la ii diray waa qorshooyin la xil saaray qorshooyinkan rag kale ku maqan marka saamaynta aan leeyahay iyo dadaalka aniga ismiinay waxaad qaban kartaa hakro waan jecelahay waxaan qaban karno nooc kasta ahaadeen wax ka soo deegaanka u qaban karto inaan hakran waan jecelahay laakiin ismalihi adaa farsoo dheer gooniya ah dadkaas wanaagsan oo fircoon inaan xibin dhexda uga jirta ahay xibintii la idiran aan qabto intaasan dareensana xasan waxaan is leeyahay baxdo waa magaalo culummo iyadoo deegaanada iyo magaalooyinka oo dhan gobolkeena dhan annaha culimada mid kasta ay ku badan yihiin laakiin waxa magaaladan درس كو أخرج جري وبني واحد بنجي وشيخ أحمد على غيره شيخ أحمد من درع أيوها ننجع عن فرن الدقسي أيوها من الأسبوع كأمضى بالشدة هرمرك بالشدة أو يقانوها واحد بدن على قد حلي وحال السلة وحيالا كينا وحكم ذا مقالوين كعلماء الجوكته قار كم ذا هو كله وحال جيابا إنه يسكت حلوجيان إنه يمد درس وآخريان جوكسنا ولا كان بس لكن أنا شغال إنه تسكم يا كذا رب حضنا أنا مثلنا هاي رب حضا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى من المؤمن الضعيف قفنا المؤمن كهو الضغن كأه نتكفر فرعون وغير ذلك أياك غير بدن لقج عليه حديث كاس أيان النقو يضع علماء أنه كل رغمان أيان مودين ومعناها كم غضر دقاقين وحنا نقول سيد دبر لقي حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز وحكى صوت أنفع يكون ذلك سيدا أوجد وحن جعلنا عافماتك وحبر الشذا نبت قليدة دولة وناقة إن نلعكس كور مرن أمضة annaga hankeenu ma aha haddana culimada reer baxdanahay inaan darsiga kale iyo ummadda akhrino muxaadaro u jeedinayso quraanka u dhigno waxaan aaminsanahay horumarka dhan diinta islaamka inuu wada horumar sida awgeed shay kasta oo horumara sifa koobaad uga jirnaa sida nabigu leeyahay shay kasta oo ku anfacay ku dadaal ilaahay was'in bil ilaahay ka u tala saaro ka madalab wala ta'jana ka aajisi lama rabo inay muddo shaygan inta la wada laga haro waxaan isleeyahay ku dhaqan xadiiskaas ku dhaqmayno in kastoo culimadu ay ku dhaqmaan laakiin aad inaan u dhaqan galaan isku dayayno ayaa naga duwan isleenahay waxaan aaminsanahay oo reebaha culimadu aaminsan yihiin haddii isku xiraan la waayo aan loo istaagin inaan horumar la gaaraynin waxaana dad doonaya inaan dhaxal ka tagno la yaqaano dadka annagu kuma tarbiyayno qoorta la idinkaga istaago dhinac kasta ha ahaato inay caafimaadkooda horumariyaan waxbarashadooda horumariyaan nabadgelyada horumariyaan dhinac kasta ummad qiiro leh oo firfircoon inaan ka tagnaan jecelna marka inta la ku beegsay waxaan isleeyahay waxa ay ilbaxnimadaas iyo xadaaradaas iyo horumarnimadaas firfircoonadaas dheerida oo macna xil isaarkaas ayaa ugu badan isleeyahay al-shabaab dhowr ujeedo ka arkeen meesha waa meel waxay isiraan dadkan firfircoon ayaga marka hore baqtiijiya si inta kale ay isaga cuntaan waxay u arkeen dadan gumaysi oo gal meesha inay ku nool yihiin dad aaminsan inay wax qabsan karaan oo aaminsan qofka mar waxa jira hankiisu dhintay dad hankoodu nool yahay waxay qabsan karaan aaminsan inay yihiin waxaa jirta nin maasayahan mar lahaa hadba nolosha taa doorataa tiirar ku noqone tigsiga ha dhigin meel soo koon tabaru ku geynin tusaalana u noqon duulkan kugu taagsan dad doona inay tusaale noqdaan aaminsanna marba si ayagu isu maaray in noloshooda horumarkooda ku taagan yahay inay baxartay aamineen marka waxay siiraan gobolka meeshaan waa meel in la gumaysan ogolayn haddii laakiin iyada aad laqadaan inta kale idin fududahay arrimahaas ugu badan taas waa qodobkaas ku beegsaya oo dadkan firfircoon damiya waa dad aan la dhaafi karin ayagoo soo jeeda aan la kormari karin taas waa qodobka labaad oo ku beegsanay waxa kamid ah maamul goboleedka galmudug baxda meel istiraatiiji ku taala waxay aaminsan yihiin ayagu haday baxda qabsadaan galmudug inay qabsadeen meel cadaada ka xigta meel gaal kacayo meel dhow samareeb marka waxay isleeyihiin nimankan firfircoon haddii aad gacanta ku dhigtaan dadka qaar waxay isleeyihiin nimankaas haddii la laqay inta kale xig sheegay maamulkeena waa burbura gobolka xudunta u gashay aaminsan yihiin nimankii dagaalka labada dagaal soo galay maalintii dagaal ku bilowday maanta isku khibrad ma isku awood ma waa waxay la kulmeen waa la soo dhaqmeen khibrad badan uga siyaadiyay waxaan ka barnaa waxa kamida dad tashaday wax ka sanay qabsan karaan wana ninkii maasayahan oo muddo hadda ka hor lahaa abaarku ba haduu diriirsan yahay dudul ma taageene inkastoo dadkana loo qabo dunidu goobayso isku dubnadu wuxuu ku miro daaro amaankaas waa tabariyada dudumo weyn u dhisaa marka waxaan ka barnaa waxa kamid wax la qabsan karo ummadda haday tashato tawfiiq yeelato si kasoo u saanad yar tahay si kasoo u tar yar tahay si kasoo u dhaqaal yar inay guul gaarayso ilaahina tala saartaan
waxyaala laga barta taasaa ka mid ah annaga maan ummadda nagu xeeran xataa wax badan ka barata